haddaba si looga hortago hadimada hindisihii ra'iisul wasaare Macmillan darteed golihii baarlamaanka daaqiliga ee waqooyiga ayaa shir ka yeeshay arrinka 6dii bishii afraad 1960kii waxaa si buuxda la isugu waafaqay in si shuruud la'aan loo mideeyo koonfurta iyo waqooyiga iyada oo shirkaasi lagu magacaabo wafdi isku dhaf oo ka kala socday SNL iyo USB iyaga oo loo diray xagga magaalada Muqdisho 16kii bishii afraad 1960kii waxaa xamar ku shiray ergadii waqooyiga ka timid erga laga xulay Israel xaraaradda xiisaha Soomaalinimada xilligaasi aad u sareysa darteed raggii loo xilsaaray inay ebyaan unugii aasaaska u noqon lahaa midnimada Soomaali weyn iyagoo aanan si taxadir leh ugu baaraan degin arrimo u baahnaa in si qoto dheer loo lafa guro waxay si fudud oo weliba shafawey u badnaa ama hadal aan qornayn u badnaa waxay isku raaceen qodobadaani maadaama Soomaalida ay ka midaysan tahay diin hiddo dhaqan luqad midib isla markaana aysan jirin wax deegaanadeeda kala qaybiya sida bad iyo buur koonfur iyo waqooyi waa in si shuruud la'aan ay ku midoobaan in jamhuuriyadda Soomaaliya ay tahay qaran dhan kasta ka midaysan oo leh madaxweyne ra'iisul wasaare iyo baarlamaan ka kooban 123 mudane 90 waa inay yeelataa koonfurta halka waqooyigana loo qoondeeyay 33 xildhibaan caasimadda jamhuuriyadda waa Muqdisho dalkan wuxuu u qaybsan yahay 8 gobol 6 koonfurta ayay dhacaan 2na waqooyiga in la isku dhafo ciidamada iyo shaqaalaha koonfurta iyo waqooyiga u kala shaqeeyay labada isticmaar